laga bilaabo ciyaartoy taageerayaasha kaga yaabsaday iyagoo hurda ilaa Cristiano Ronaldo oo ilmo si lama filaan uga yaabsaday meel fagaara. kuwani waa waqti ay ciyaartoyda kubadda cagtu taageerayaashooda kaga yaabsadeen xilli aysan filaynin. marka hore taageerahan shaqada badan waxa ku jiray shaqadiisa maalinlaha ahayd, manuusan ogeyn in xiddi ka tirsan kooxda Liverpool uu albaabka ka soo geli doono daqiiqada kadib. Oh, it's cold out there, isn't it? xiddiga Curtis Jones ayaa soo galay dukaanka roodhida, wuxuuna u dhaqmay sidii inuu yahay keliya macbiil caadiya oo doonaya cunto fudud. markuu William arkay uu rumaysan waayay indhihiisa. Jones ayaana u sheegay in shaqadiisu ay dhammaatay sababtoo ah waxay wada aadi doonaan garoonka Anfield. Can I tell you something? Your shift is actually done in here. And of course I know where you are. And you're actually coming with me, and me and you are going on a trip in that lovely stadium over there. Wow, no way. Oh my God. And look who's here with you. Look who's here. I'm up. runtii yaabka noocaas ah waa uu qalmay isagu, laakiin isagu ma aha midka keliya sidan sameeyey, sababtoo ah Lionel Messi ayaa isaguna sidaas u kala sameeyey. hore ayaan u aragnay Messi oo taageerayaasha kaga yaabsanaya xaysiisyada, waxaan aragnay soo guryo kala duwan si lama filaan u gelaya si uu kubadda uga daawado, balse taasi waxay ahayd qorshe. balse markan waa ay ka duwan tahay kuwii hore. intii uu duubayay xaysiiska Lays, Messi waxa uu galay baar ku yaala Miami, si caadi ah ayuuna u weydiiyey in kubadda laga daawan karo iyo in jabista Lays ay hayaan. Pero ¿tienen legs? ¿Alguno tiene legs? qiyaas adigoo fadhiya baar maxalliya oo ku yaala Miami oo si lama filaan u arka Messi iyo Suarez oo soo gelaya si ay u hubiyaan keliya inaad haysa bac jabisa. taasi waa wali, balse mararka qaar yaabku wuxuu dhici karaa adigoo hurda. taageerahan reer Chelsea si buuxda ayuu hurday, halka ciyaartoyda kooxduna ay dushiisa taagnaayeen. Chelsea, that's the quitters. Come on, my friend, celebrate. markii uu indhaha kala qaaday wuxuu si toos u eegay Marcos Alonso oo dhoola cadaynaya, welina xidhan dharkiisa ciyaarta. waxay ku qaadatay dhowr ilbiriqsi in maskaxdiisu fahanto waxa halkan ka soconaya, laakiin qof hurdayn laga yaabsadaa waa hal arrin, isqarintuna waa heer kale. dhammaanteenba waan xasuusanaa markii Cristiano Ronaldo uu isku ekeysiyey nin doqo hoyla'aana, laakiin ka hor intaas Kylian Mbappe ayaa doonay inuu isku dayo noocaas oo kale. wuxuu xidhay suudh buuran, shaarubo beena iyo timo beena, isagoo iska dhigaya kameramaan cayilan oo wareersan. intii lagu jiray waraysi carruur lala yeeshay, wuxuu carruurta u taagnaa meelaha u dhow, xataa tala ka siinaya sida loo sameeyo dabaaldegiisa caanka. carruurtuna waa ay ka xanaaqeen kameramaankan yaabka leh ilaa wejigiisa ka bixiyay maaskarada ugu qarsanayd. markaas ayayna ogaadeen inuu ahaa Mbappe. haddii Kylian Mbappe uu sidaas ku qarin karo, sugila aad ka aragta labada xidig ee Premier League ee dukaan ka shaqeeya maalin dhan, Son Heung-min iyo Ben Davies ayaa isku ekeysiyay shaqaalaha dukaanka Spurs si ay taageerayaasha u khiyaameeyaan. waxay ka caawinayeen macaamiisha cabirada iyo nashqadaha, iyagoo isku dayay in fanaanadaha ka iibiyaan iyadoon la garanayn cidda ay yihiin ee dhabta. Go to the guy on the right who's looking at the Sun shirts. Go up to him and try and sell him a Sun shirt. If you recognize me, probably. Hang on, I'm going to try. What? kadibna waxay bedeleen dharkii oo carruurta dibadda ula baxeen si ay kubadda ula ciyaaraan. Whip the wigs off, Sonny. Hello. Hi, guys. Fine. We're all going. markii ay iska siibeen timihii beenta ahaa, carruurtu si tartiib ay u fahmeen cidda ay la ciyaarayaan cidda ay tahay. daqiiqadaasina waxay ahayd kuwa leh qiimo aan la qiyaasi karin. isqarintu keliya ma sameyn dhowr ciyaaryahan noocaan ah, balse xataa Erling Haaland ayaa ka qayb qaatay. mar ayuu isku ekeysiyay Joker intii lagu jiray maalintii Halloween-ka. £4.21. Oh, you the Man City boy. laakiin si fudud ayaa loo aqoonsaday isaga, balse markan waxa uu doortay wax kale oo ka adag sidii hore. markan si buuxda ayuu isugu ekeysiyay astaanta Christmaska ee Santa Claus. Oh. Merry Christmas. How have you been behaved this year? I like your hair. Huh?
I like his haircut. haalan wuxuu albaab u garaacayay guryaha wuxuuna hadiyada siinaya carruurta laakiin yaabka dhabta waxa uu yimid markii uu iska bixiyey garhkuu xidhnaa ee muujiyey cidda uu yahay. So everyone look here. And 3, 2, 1. Merry Christmas. Merry Christmas. What do you say to Santa guys? Thank you, guys. Thank you, guys. Hello, mate. Hello, mate. Nice to meet you. kuma uusan joogsan hal guri oo keliya hore ayuu u sii waday isagoo booqanaya guryaha kala duwan misena siinaya hadiyado. When we saw Harlan dress up as the Joker. Oh, did you see on YouTube? Yeah. So if he's dressed up as a Joker, what else could he be dressed up as? carruurtuna waxay filayeen Santa laakiin waxay heleen Santa aad u dheer oo u muuqda ciyaaryahan xirfadlaa waana Erling Haaland. taageerahan wuxuu kaliya gacanta ku hayaa salool isagoo ciyaarta iska daawanaya oo ku raaxaysanaya wax gaari ma jirin balse Client Dempsey ayaa go'aansaday inuu fanaanada soo bedelo taageerahan. taageerahaas runtii waa uu ku guulaystay isweydaarsigaas. haddii taas ay tahay mid aan la filaynin tan xigtaa way ka sii waali badan tahay. Jack Grealish waxa uu muuqdaa inuu doonayo in wax cusub tijaabiyo markaas ayuu iska dhigay ninka qaada alaabta Amazon. dadku ma ogin in Jack Grealish uu isagu u keenayo dalabkooda markii albaabka fureen oo ay arkeen isagoo hortooda taagan si buuxda ay ula yaabeen. wiilkan yar xataa wuu ooyey markuu ogaaday in Jack Grealish uu isagu keenay dalabkiisa. Jake and Aidan. How you doing? Yeah. What's the matter, mate? You alright? Oh my God! How are you? You okay? ka waran inaad furtay albaabka adigoo arkaya Jack Grealish oo bashqadaadii gacanta ku haya taasi waa waali dhaba. hayloobin markii Lamine Yamal uu taageerayaal kaga yaabsaday xeebta isagii saaxiibadiis waxay ku raaxaysanayeen maalin fasaxa gudaha Dubai balse markii uu arkay carruur kubadda ku ciyaaraysa xeebta waa uu u tagay si uu ula ciyaaro. carruurtu waxay u badan tahay inay u maleeyeen inay ku jiraan riyo xitaa hal wiil oo ka mid ah waxa uu qabsaday jilbaha si uu ugu muujiyo qadarin. ciyaarta kadib sawir ayay wada galeen si ay xasuus ahaan ugu haystaan laakiin ciyaaryahanka xiga waxa uu taageerayaasha uga yaabsaday si gebi ahaanba ka duwan kuwii hore. wuxuu iska dhigay taale amba caag dhar xidhan wuxuu si quman u dhex istaagay gudaha sanduuqa bandhigyada ciyaartoyda wuxuuna ag taagnaa taalo dhab ah oo laga sameeyey Cristiano Ronaldo. markii taageerayaashu ay u soo dhawaadeen si ay sawir uga qaataan amba wejigiisa weegaan Gareth Bale lama filaan ayuu ugu dhaqaaqay. Exception. naxdintana waxaad ka arkaysaa wejiyadooda qofna ma uusan filaynin in taalladu ay dhaqaaqi doonto. ciyaaryahankan kale isaguna waxa uu noqday nin kameramaana si uu taageerayaasha uga yaabiyo. taageerayaashan waxay ciyaarayeen kubadda loo yaqaana fustasha. ciyaartana waa la duubayay balse cidna ma aysan ogeyn cidda ka dambaysa kamarada. Okay, if my friend play for me, is that? Yeah, man. Yeah? No worries. Yeah, no worries. Hey, Ben! I hurt my handshake. Yeah, is that okay? Yeah? markii kameramaanku si lama filaan ciyaarta ugu soo biiray qof walba waa uu amakaagay. maysan rumaysan karin in ninka kameramaanka uu sidan oo dhan u ciyaari karo xitaa marka taageerayaashu ay shaqo ku mashquulsan yihiin yaabku waa u dhici karaa. ninkan ayaa maalin caadi ah waddada ku iibinaya maaliyadaha kubadda cagta. The Brazilian shirt, please. Okay, give me one. Hey! laakiin ma uusan ogeyn in macbiilka xiga uu noqon doono Neymar Jr. markii uu gartay cid hortiisa taagan si buuxda ayuu ula yaabay ma uusan garanaynin siduu uga falcelin lahaa wuxuuna si degdeg ugu wacay saaxiibadiis oo sawir la galay
si u xaqiijiyaan daqiiqadaasi ay dhab tahay. mararka qaar ciyaaryahanadu waxay taageerayaasha uga yaabiyaan wakhtiga uga habboon. markii taageerayaashan ay sawir isku diyaarinayeen, xidiga Hector Berlin ayaa si lama filaan ugu soo biiray, gacanta ayuuna garabka ka saaray sidoo inuu mar walba la joogay oo kale. taageero ka mid ayaa si aad ula yaabay ilaa uu sawir selfie iska qaadi waayay, wuxuuna kaliya sawir ka qaaday Hector Berlin. yaabku mararka qaar waa uu kasii weynaan karaa intaas. Kevin De Bruyne, Nathan Ake iyo Riyad Mahrez ayaa si qarsoodi ah u galay guri taageere si ay ugu sameeyaan booqasho lama filaana. waxayna guriga dhex dhigeen alaabo Manchester City kadibna gudaha ayay ku sugeen. taageerahani waxa uu moodayay inuu aadi doono waraysi caadiya, balse markii ay guriga ku soo noqotay waxay aragtay De Bruyne, Ake iyo Mahrez oo fadhiyo fadhiga oo cunaya salool sidii inay guriga iyagu iska leeyihiin oo kale. She's coming. It's a little bit messy in there with the dogs. There's some popcorn. Sorry, broke in your house, sorry. It's okay. I'm sorry for the messiness. I wasn't expecting that. taasina waa yaab aysan weligeed iloobi doonin. mararka qaarna yaabku waxa uu gaari karaa heer aan la rumaysan karin gebi ahaanba. Cristiano Ronaldo ayaa mar isqariyay isagoo iska dhigay nin buuran oo derbi jiif oo waddada kubadda ku ciyaaraya. wuxuu xidhay dhar buuran, timo been iyo dhar yaab leh. qofna dareen ma siin, dadkuna waa iska dhaadhaafayeen sidii inaanu jirin oo kale. laakiin hal cunug oo nasiib badnaa ayaa go'aansaday inuu la ciyaaro kubadda. cunugaasi ma ogeen inuu la ciyaaraya Cristiano Ronaldo. markii Ronaldo uu ismuujiyey, dadkii meesha joogay oo dhan qayle ayay la boodeen. taleefanada ay la soo wada baxeen. runtii qarintaas waxay ahayd mid taariikhiya, laakiin tani waa keliya mid ka mid a muuqaaladayda. waxaa jira yaabab kale oo kasii waali badan oo ku sugaya adiga daawade. daawo muuqaalada shaashada kaaga soo muuqan doona. waxaan soo gaadhnay dhammaadkii muuqaalkeenna. haylowna laag saarta muuqaalka, kuna soo birta kanaalka oo aad tidhaa subscribe. intaynu ku kulmayno muuqaal la mid sidaas iyo maca salaama. fi amaan illah.